gabadhan yar bilo badan ay afduub ku jirtay kadib markii la helay waxa la weydiiyay aaway qofkii hooyada iyo aabaha dilay adigana ku afduubtay waqtigaas badan xaguu kugu hayay hadda ayaa ka soo fakiyay waxay tiri gabadhan yar ninka hooyada iyo aabaha dilay waxa lagu magacaabaa Jack Patterson muddadaas dhan iyo waqtigaas dheer waa qofka ay haystay oo aan u afduubnaa muddo dheer oo ay u xirnayd kadib waxay awooday inay ninkan ka cararto fursad ay heshay wayna ka soo baxsatay dhacdadan qaybteedii koobaad laba maalin ka hor ayaan soo galinay haddii aadan horey u daawan laabo oo soo daawo markaas u soo laabo qaybtan labaad daawada waxaan ka codsanayaa muuqaalkan like saarto siina share gareedo labadaas waxay ka caawinayaan in dad badan gaaro anigana waxay igu dhiirigelinaysaa soo gudbinta muuqaalada noociisa ah muuqaalka waqti ayaan geliyay qof walba uu daawanaya like nama saarayo Jamie Close waa gabadhan yare markii ay ka soo fakatay ninkii afduubka ku haystay in badan waa ay soo carartay wadada ayayna in badan ku cararaysay ilaa ay heshay Jenny oo ah haweentii booliska farta ka saartay Jenny gabadhan waxa ay la kulantay ayadoo aad u dandareysan oo qof xabsi ka soo baxay u eg isla markii ninkan Peter lagu magacaabo ayaa arkay booliska ayuuna sidaas ku wacay boolisku waxay weydiiyeen gabadhan yar inay siiso ninkan ciwaankiisa ama adreeskiisa haddii ay garanayso ama sidoo kale taargada gaarigiisa waxay ugu soo gaabisay gabadhan yar booliska hadal aysan filayn waxay tiri haddii aad raadisaan ninkaas hadda guriga banaankiisa ayuu joogaa waadna heli kartaan boolisku marka ay banaanka u soo baxeenba ayagoo horey u haystay tilmaamaha ninkan gaarigiisa iyo sidoo kale magaciisa oo ah Jack Patterson si degdeg ah ayay ku heleen alxamdulillah gaarigii tilmaamihiisa iyo taargadiisa ayay fiiriyeen gadaashiisa ayay ka imaadeen waana ay taajiyeen waxa ay ku dhaheen adiga Soomahan Jack Patterson waxa uu yiri waxa ay ku dhaheen ka soo gaariga oo kaalay way qabteen kadibna saldhigga ugu dhow ayay geeyeen markii la geeyay qolka dambi baarista waxa la weydiiyay Jack Patterson waxa lagu tuhmay dilka James Close Dennis Close iyo afduubka Jamie Close isla markiiba waa uu qirtay waxa uu yiri aniga ayaa dilay aabaheed iyo hooyadeed gabadhana aniga ayaa afduubtay dambi baarayaashu waxay ku yiraahdeen taas waan ogaanay laakiin maxaa kugu kalifay inaad samayso falkan Jack Patterson waxa uu yiri maalinkii uu falkan dhacay qorigayga ayaan soo qaatay waxaana soo aaday guriga qoyskan albaabkooda ayaan jabiyay isla markaasna waxa iga hor imaaday James madax ayaan xabad uga dhuftay markii aan guriga soo galay waxaan maqlay Dennis Close oo booliska wacaysa ayadiina waan u galay waana dilay kadibna gabadhan yar ayaan afduubtay gaariga ayuu ku tuurtay gabadhii gurigiisa ayuuna la aaday horey ayaan u soo sheegnay inuu booliska ka hor imaaday ninkan laakiin aysan gaarigiisa ku mashquulin waxa uu sheegay markii uu ka dejiyay gaariga gabadhan yar inuu guriga geeyay kadibna sariirta hoosteeda uu ku xirtay aan wax yar ka ogaano Jack Patterson ninkan waxa uu jiray 21 sano markii uu falkan geysanayay magaalada uu falkan ka geystay ee uu deganaa waxaba ku nool dad yar oo 600 oo qof ah maadaama magaaladani ay ahayd mid yar dadkeeda inta badan way isgaranayeen laakiin waa la waayay hal qof oo aqoonsada ninkan lagu magacaabo Jack Patterson hadda waa magaalada wax ku bartay oo ku soo barbaaray sababtuna waxay tahay ninkan wuxuu ahaa nin degan kaligiis nool kaligiis socda kaligiis dhaqma ninkan waxa uu dugsiga sare ka baxay sanadii 2015 markii uu dugsiga sare dhameeyay waa uu ka dhuuntay dadkii oo dhan maalinkuu qalin jabiyay kadibna cid meel ku sheegtaba lama arag gurigan uu deganaa Jack Patterson gabadhana uu ku afduubtay waxa lahaa hooyadiis iyo aabihiis laakiin muddo hore ayay ka guureen oo magaalo kale ayay u guureen laakiin wali waxaan isweydiinaynaa sababta uu ninkani u weeraray qoyskan waxa uu leeyahay maalmaha kamid aniga shaqada ka soo socda oo ag maraya qoyskan ayay gabadhan yari ka soo degtay baska ardayda lagu qaado gurigan ayayna gashay isla markii gabadhan yar way cajabisay oo waan jeclaaday sababtaas ayuu u weeraray qoyskan maalinkii 15 Oktoobar 2018 ayay ahayd markii uu falkani dhacay guriga ayuu u soo laabtay ninkan markuu gabadha arkay qori aabihiis u yaalay ayuuna soo qaatay sidaas ayuuna u weeraray qoyskan su'aasha kale waxay tahay sidee ugu nooleed gabadhani guriga dilaagan muddo 88 maalin ah waxa uu sheegay ninkan asbuuci koobaad inay gabadhani aad uga cabsanaysay inuu dili doono inuu kufsan doono maxaa yeelay hooyadeed iyo aabaheed ayuu ku hor dilay iska ooyi jirtay cunana ma cuni jirin waxna ma cabi jirin muddo kadib waxay ogaatay ninkani wax xadgudub inuusan ku sameeynayn waxay sheegtay xitaa hadal xun oo cay ah inuusan ku dhihin inuu ku xadgudbo iska daayay kadib qalbigeeda wuu u degay waxna way cuni jirtay waxna way cabi jirtay filimkay rabta ayuu u daari jiray waxay rabtan waa uu sii jiray ilaa gabadhani ay ilowdayba ninkan inuu aabaheed iyo hooyadeed dilay ayadana ay afduuban tahay waxauna mar walba ku qanci jiray icafi waxaanu dhan waxaan u sameeyay inaan adiga ku helo oo kula noolaado 88 maalin kadib Janice yar ayay heshay waana ay ka carartay sidii uu albaabka u xiri jiray uma uusan xirin maalinkaas markii uu soo laabtay wuxuu arkay ayadii oo maqan baabuurkiisa ayuuna qaatay oo raadkeeda ayuu raacay asagoo raadinaya ayay boolisku sidaas ku qabteen maalinkii 24 May 2019 ayaa ninkan xabsi daa'im laba mar ah lagu xukumay oo ah dilkii James Close iyo Dennis Close waxaana lagu sii daray 40 sano oo xabsi ah oo ah afduubkii Jamie Close dhacdadan intaas ayay ku egtahay like saar siina share galay page kana follow